maansadaasi waxay odhanaysaa qaadirow adaa weyn qafaarow adaa mudan qaniyow adaan cidi awooddaada qaban karin adigaa qorshaha dega waxba kaa qabyoobayn adaa qaybshay dunidoo waxba kaa qarsoonayn adaa muumin qiri karaa adaa qaafil daday laabqari yidhi xumaantii uurkiisa qubi karaa adigaa qahaaroo qowlkaagu fulayaa adaa qoomka nool iyo qaybaha jamaadkii kuu wada qushuucaan cirkan quruxda weyn iyo dhulkan laysku qoofalay quruumaha ku nool gebi adaa quudka siiyee qaadirow ilaahow naga qaba balaayada qur-aankaaga nuurka leh qowlkaaga dahabka ah ku qotomo xaqiiqada ka qisooda tii shalay lagu qoray wixii jira berriyi ay ku qeexnayd ilamaa qiyaamaha qadarrada wixii dhacay kuwa qaa'ibkee maqan kitaab ay ku qoran tahay quduusow adaa lehe naga qaba balaayada sidaynu wada ognahay qur-aanka ilaahay wuxuu ka warramaa wixii dhacay waxaa dhici doona iyo waxa maanta taagan saddexdaba uu ka warramayaa qur-aankaaga nuurka leh qowlkaaga dahabka ah ku qotomo xaqiiqada ka qisooda tii shalay lagu qoray wixii jira berrii ay ku qeexnayd ilamaa qiyaamaha qadarrada wixii dhacay kuwa qaa'ibkee maqan kitaab ay ku qoran tahay quduusow adaa lehe naga qaba balaayada qowlkale wuxuu yahay dadku qayba weeye qoladaynu nahay sheeg in qur-aanka raacdo qaadirkood siduu yidhi qowlkoogu raaco qalbigoogu nuur yahay shirki lagu qasaayo bidcada u qarsoomayn qaadirow adaa oga qowmkaana raacsii qolo kale waxay tahay ummad wada qarribanoo qaxar iyo dhib badanoo qodobada horeen idhi midna kuma qumaayo waa gaal qarmuun oo aakhiro ka quusto ibliis baa qaraabiyo ehelkooga qaaroo nolol uma qalmaayo qalbigaa madowo xoolahaynu qalannaa xagga qaabka dhaamee qaadirow ha nagu darin qoom kale wuxuu yahay ummad qowl islaam loo qoyskay dhex joogaan ashahaada qirayo qur-aanki iyo xadiiski iyo salaad lagaga quusto qadaadkaa intuu jaray cawradu u qarsoonayn bal adiguba qiyaasoo qoomkeen u badan nahay adiguba qiyaasoo bal qoomkeen u badan nahay ubadkeennii qaar baa lagu daaqiqaankee ubadkeennii qaar baa lagu daaqiqaankee qaali hooyadayey maxaan qiil ka dhiganaa markaan leeyahay qaali hooyaday uma jeedo waxaan u jeedaa dumarka halkan fadhiyo oo dhan sidaynu wada ognahay marka xaflad la qabanayo waxaa soo buuxiyaa waa dumar weeyi sidaa awgeed ayaanu leeyahay qaali hooyadayey maxaan qiil ka dhiganaa aabbahoodna qaadbaa qayrkii ka reebo sigaar qiiqayuu helay qol yaroo ibliis buu qadaadkaa u jiifaa maba oga qiyaamaha sida ayaxa qaday buu cagaarka u qurquriyaa ileen qaadka mooye dalka quudma soo galo lama qodo dhulkeennii qarfo weeyi laga tegey qaali hooyadayey maxaan qiil ka dhiganaa ummaddani qaxeegiyo in qaxooti laga dhigo gaal baa qorsheeyo manhajkay ku qoran tahay ku qulqula qurbaha taga quba caanihii noo saliid qaydhin dhaafsada qarax iyo bariiski iyo ku qabaama baastada qur-aanka iyo xadiiskuba qurbo kama shaqeeyee qorta sayniskiino ku qadhaabta weligiin qorta sayniskiino ku qadhaabta weligiin qaali hooyadayey qisadani balfaalle markaa waa qiso yaroo aniga igu dhacday beri aniga laftaydu waxaan ahay macallin oo madarasada ayaan dhigaa markaa qiso yar baa soo martoon la yaaba ilaa hadda qisadaa yar waxay ahayd ku yar ayaan u dhigi jiray qur-aanka ka yari wuxuu ahaa ku yaroo aada u fiican oo xariifa buu ahaa qur-aankana wuxuu akhriyi jiray si wanaagsan buu akhriyi jiray dabadeetana inanka isagoo qur-aanka si fiican oo akhriyaya oo si wanaagsan u wada oo aan aniguna niyadda iska leeyahay waar ninkani wuxuu noqon doonaa beri dhow sheekh dee sheekh diriroo kale u noqonayaa oo wuxuu noqonayaa nin qaariya anigoo isle uunbaa ki yaraa showle iskuul unbaa lagu daray ki yaraa unbaa soo noqday isagiioo aan qur-aankiiba haynba aniga isir bal maanta malaha siba si kale u dhacday bala dawyarkaadi maalintii kalena uu kasii daray wax in looga sii dara mooyaane waaba loogu soo dari waayba ki yaraa dabadeetana waanigan ku uhi bal orodoo waalidkaagii u yeedh dabadeetana islaantii baan ku uhi bal war isiiyo dee inankani nin fiican buu ahaayo xariif oo qur-aanka si fiican u akriye bal warkiisaysi maxaa soo kordhay dabadeetana warkiibay siinaysaa markaa waxay ugu tiri ilmihii ulo ayaan qoray qalabkii iskuulkaan qurxiyaa had iyo jeer wakhtiyada qaliilkaan qur-aanka u diraayo qalbi umahayuu yidhi anna waanu qiraytaa kii qur-aanka dhigayo meel kalaan bal qorayaabay tir ummaddani qisiya yaab way wada qarribantoo qabqabsigu ku badayo qof waliba qabkiisu isla qiimo weyn yahay qowlkayga soo raac nin weliba ku quusko
qumanaan dariiq loo jannadii qaboobay toos ugu qulqulayo axadkii qabsada taakama qada fardowse qurxoonow rasuulkii awqaadir soo diray ku qumtiisu waa dhabe qabanqaabid ubadkiyo qorqoridda dhallaankiyo qabyatirid ciyaalkiyo intuu ubadku qaan yahay weli qoloftu weynaan qalbiguna wax kala gelin in qur-aanka loo diro waalidkaa ku qorantaa qurxi ubadka hooyooy aabbowna qarashkiyo bixi quudka waa amar qaadirkaa ku faraytaa waxay noloshu qiimiyo qurux aada leedahay markuu ubadku qabatimo waalidkii qadariyuu ku qushuuca diintee waxaan qaanka leeyahay qolalkii fardowsiye qudaar bidiba nooc tahay qiyaamaha aad ruugtide bara qowlka eebbo waalidkaaga qiime asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu